assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soonqaad wanaagsan daawadayaal. ciidamada ruushka waxay haatan ka dagaalamayaan bartamaha tuulada istaraatiijiga ee bakhmuud. maalinimadii shalay ayay sheegeen ciidamada ruushka inay gaareen ciidamadoodu bartamaha tuulada, ayna ku howlan yihiin siday u soo afjari lahaayeen dagaalkii 4 bilood ee lasoo dhaafay ka socday tuulada. wasaaradda gaashaandhigga iyo yukraaniyiintu waxay sheegtay in ciidamadoodu weli ay ka dagaalamayaan tuulada istaraatiijiga ee bakhmuud, inkastoo 3 maalmood oo lasoo dhaafay dowladda yukrain ay ka deyrinaysa xaaladda ciidamadooda ka dagaalamaya guud ahaanba bariga dalka. ruushka ayaa halkaa waxa uga dagaalamaya ciidamada ka barbar dagaalama kuwa ruushka ee wagner groupka oo iyagu ah ciidamo si gaara loo leeyahay. ninka iskale ciidamadaas waxa uu sheegay maalmaha soo socda, haddii aanay noqon saacadaha soo socda, inay soo afjari doonaan dagaalka ay halkaa ka wadaan yukraaniyiintana ka saarayaan. maalinimadii doraad ayay ahayd markaannu idinla wadaagnay muuqaal uu ka soo muuqday ninkaasu xilli uu ku sugnaa xabaalo. uu sheegay inuu ku aasay ciidamo ka tirsan kuwiisa ka dagaalamaya bakhmuud. haatanna waxaa la rumaysan yahay inuu si weyn u caraysan yahay, kuna amray ciidamadiisu inay soo gebagabeeyaan dagaalka ay ka wadaan tuulada istaraatiijiga ee bakhmuud.